marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايلهير آية الليل آية النهار نولشن الدنيا أن كن نولهي ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر بإلى هيري نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يهبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي قنوش يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا بربرها جنة كميدا لوغا دغيا قال كينا waxa looga dhigaya gudgudodka naarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim wala hasratun fi nushurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda la ilaaha illa allah ehelkeega noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciida intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulillaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاسة قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا والجوغي طبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا طبعا كنوا سنن حسابتها كل ما دونت لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله ما لقى قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقى سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقى نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبان نبودي وان نبت قلبي يري مرقى ابو النبي يقول صونغو سيادو كل نبت قشيبو كيري بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم hadduu doono iska kaaya cafin buu macid baa isaga qabsanaysa buu yiri waa kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك ماذا مجرو
hadduu jirana buu rasuulku leeyahay rabbigii buu qiyaamaha la kulmi doonaa addoonkii rabbigii maalinta cid u kala afcelinaysa ma jirto luqa carabiya lagu wada hadlayaa xagga midigtuu eegi camalkiisii buu arki xagga bidixduu eegi camalkiisii buu arki hortiisuu eegi naartii buu arki fattaquu nnaara walow bishiqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeedoo sadaqadaad u bixisaan kolay noqotana timir jeexeed walow bishiqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nebigu yidhi timir jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalkan wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadal subxaana allah waa kelmad wanaagsan alxamdu lilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruufku waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu tayibatu sadaqa buu nebigu yihi caaisha radia allahu canha uma almuuminiin ayaa tidhi markuu nebigu uhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay slam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa la ysdhex soconayaa haa waa la ysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu uhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jiro buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa asulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badani waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati ariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan wa rabbii laa adrii maada yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta uma almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaaddii maqrib 5 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega meeshuu marayo aakhiraduu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaasi iga bixinaya oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday
salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigaya. dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaga aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhanna kuu diraya